أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee Xareed Media oo habeenada Arbacada iyo Jimcaha soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media. أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. daawadayaal waa habeenimo Arbaca ay soo galayso 11 bisha 2 ee Febraayo 2020 qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka ciyaaraha ee channelka Xareed Media waxaa ka mid ah dhammaan ka sheekeynta shanta horyaal ee qaaradda Yurub kulamadoodii toddobaadkan laga ciyaaray. sidoo kale waxaynu dul istaagi doonaa horyaalada kala ah horyaalka Isbaanishka Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona oo wada guuleystay. horyaalka dalka Germany-na waynu eegi doonaa kulamada laga ciyaaray. sidoo kale waxaynu eegi doonaa Talyaaniga Juventus oo laga adkaaday Inter Milan oo ka faa'iideysatay waa daawa doontaan natiijooyinkaas oo dhameystiran. sidoo kale waxaa daawa doonta horyaalka Faransiiska toddobaadkan kulamadiisa laga ciyaaray guulaha la kala gaaray waynu idin soo baahin doonaa. sidoo kale horyaalka England Premier League kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray waynu idin soo baahin doonaa natiijooyinka ka soo baxay. waa tahay daawadayaal markaana waxaynu gudgalaynaa barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa ka sheekeynta dhammaan shanta horyaal ee qaaradda weynta Yurub natiijooyinka ka soo baxay. haddii aynu ku hormarno horyaalka England Premier League kulamadiisa 26aad qaar ka mid ah ayaa toddobaadkan la ciyaaray. naadiga Everton ayaa marti qaaday Crystal Palace waxayna ciyaartaasi ku soo dhamaatay 3 gool oo ay Everton ku adkaatay. sidoo kale Brighton waxay garoonkeeda ku soo dhaweysay Watford waxayna ku heshiiyeen barbadhac gool ah. si lamid ah Sheffield United 2 gool waxay kaga badisay AFC Bournemouth. Manchester City iyo West Ham kulankaasi waa uu baaqday toddobaadkanna lama ciyaaran. sidoo kale kulamo aan laga ciyaarin ayaa jir horyaalka English Premier League oo toddobaadka soo aadan asana laga ciyaari doono. waxay u dhici doonaan sida tan Wolves Leicester City ay martiqaad doontaa, Southampton Burnley ay soo dhaweey doontaa, Norwich City Liverpool ay soo dhaweey doontaa, Aston Villa Tottenham ay martiqaad doontaa, Arsenal iyo Newcastle United-na way iswajihi doonaan oo Arsenal ayaa Newcastle garoonkeeda ku martiqaad doonto. si lamid ah kulanka ugu adagna waxa uu noqon doonaa toddobaadka soo aadan Chelsea iyo Manchester United. kulankaasna wuxuu ka dhici doonaa garoonka Stamford Bridge. daawadayaal halkaas kaga talaabno kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka English Premier League iyo waliba kulamada toddobaad soo aadan laga ciyaari doono wallow ee toddobaadka baaqdeen kulmadii ugu badnaa. waata daawadayaal markaan waxaynu gudagalaynaa ka sheekeynta horyaalka dalka Isbaanishka ee La Liga kulamadiisa toddobaadka natiijooyin ka soo baxay iyo waliba kulamada xiga ee la ciyaari doono hadduu eeba yiraahdo. Isbaanishka hadii aynu eegnana kulamadiisii 23aad ayaa toddobaadka laga ciyaaray. Alaves 2 gool eber kaga adkaatay, Levante 2 eber Leganes ay kaga adkaatay, Cateve 3 gool iyo waxba Valencia kaga adkaatay, Real Valladolid iyo waliba Villarreal gool ay ku heshiiyeen, Atletico Madrid gool waxba Granada kaga badisay, Espanyol 1 eber waxay kaga badisay Real Mallorca, si lacayna Real Sociedad 2 gool Atletico Bilbao ay ku garaacday, Osasuna 4 gool Real Madrid ayaa kaga adkaatay. si lamid ah Celta Vigo 2 gool Sevilla ku garaacday, Barcelona iyo Real Betis oo wada ciyaareen 3 gool Barcelona ayaa guul ku gaartay. horyaalku isbedel ma jira wali Real Madrid ay hogaaminayso kanalka wad ku jirta. markaana waxaynu eegi doonaa daawadayaal kulmadiisii 24aad ayaa toddobaadka soo aadan laga ciyaari doona. Valencia iyo Atletico Madrid ayaa iswajihi doona.
Mallorca iyo Alaves way iswajihi doonaan. Barcelona iyo Cateve way iswajihi doonaan. Villarreal iyo Levante way iswajihi doonaan. Granada iyo Real Valladolid way iswajihi doonaan. Sevilla iyo Espanyol way iswajihi doonaan. Leganes iyo waliba Real Betis way iswajihi doonaan. Eibar waxay soo dhabeey doontaa Real Sociedad. Atletico Bilbao waxay martiqaad doontaa Osasuna. Real Madridna waxay soo dhabeyn doontaa naadiga loo magacaabo Celta Vigo. waatay daawada halkaas kaga talaabno ka sheekeynta horyaalka Isbaanishka markaan waxaynu aadi doonaa horyaalka xiisa iyo xamaasada leh ee sanadkan tartanka adag ka socda ee Talyaaniga. Juventus Inter Milan ayaa isku dhagan sanadan mid walba ee doonaysa in horyaalka qaado. Haddii aynu eegno natiijooyinka ka soo baxay kulamadii 23aad horyaalka Talyaaniga ee Serie A, Roma 2-3 gool, Bologna ayaa kaga adkaatay, Fiorentina 2-gool, Atalanta ayaa kaga adkaatay, Torino 3-gool, Sampdoria ayaa kaga adkaatay, Hellas Verona 2-gool, Juventus ayay ku garaacday. Juventus waadkan waa laga adkaaday hogaankana Inter Milan la wareegtay. Isbaal 2-gool, Sassuolo ayaa ku garaacday, Genoa 1-0 Cagliari ayay kaga adkaatay, Brescia iyo waliba Udinese gool galeen, Napoli 3-2 waxa kaga badisay Lecce. Silamada Parma gool waxba Lazio ayaa kaga adkaatay. kulankii la wada sugaayana wuxuu ahaa reer Milano, Inter Milan iyo waliba AC Milan. Derbiga Milano ayaa la wada sugaya 4-2 goolna Inter Milan ayaa ku adkaato oo durba dib ugu laabatay dhankii waliba kala sareynta horyaalka kaalinka koowaad ay dib u la wareegtay. Antonio Conte iyo ciyaartoydiis waxa ka go'an in ay soo afjaraan 8 sano xiriirka ay Juventus qaadayso horyaalka Talyaaniga ee Serie A. ciyaartii Inter Milan soo bandhigtay ciyaar aad loo yaabay ahayd qaybta koowaad 2 waxba Inter Milan loo hogaaminay. Marka dib isku soo laabtay Antonio Conte ciyaartoydiis ciyaar dhaftay soo bandhigeen asi 4 gool ku bedeleen. Ninkii Ibrahimovic 9 kulan oo AC Milan u ciyaaray lagama adkaan la kulankiisa 10aad Inter Milan ayaa soo afjartay walow gool oo dhaliyay haddana waa laga adkaaday 2 gool iyo 4 gool Inter Milan ayaa ku adkaatay. natiijooyinka halkaas kaga talaabano Serie A kulamadiisii 23aad markaan waxaynu eegi doonaa kulamada 24aad todobaad soo aadan laga ciyaari doono. Lecce Spal ay soo dhabeey doontaa, Bologna Genoa soo dhabeey doontaa, Atalanta Roma ay soo dhabeey doontaa, Udinese Hellas Verona ay soo dhabeey doontaa, Juventus Brescia ay soo dhabeey doontaa, Sassuolo Parma ay soo dhabeey doontaa, sidoo kale Sampdoria Fiorentina ay soo dhabeey doontaa, Cagliari Napoli ay soo dhabeey doontaa, Lazio iyo Inter Milan. Inter kulan kale adaga todobaadkan uu xiga hadii AC Milan todobaadkan ay ka soo baxsatay magaalada Roma ayay u safri doontaa oo Lazio ay la soo ciyaari doontaa. Milanna Torino ayay soo dhabeey doontaa. daawadal markaan waxaynu eegaynaa kala sareynta horyaalka Serie A isbedel dhacay maadaama Juventus ay kuftay Inter Milan ay guuleysatay sida isbedel u dhacay ayaynu eegi doonaa. horyaalka Serie A hadii aynu eegno kala sareyntiisa kaanadka wada Inter Milan ku jirto 23 kulan ciyaartay 16 badisay 6 barbadhac gashay 1 kulan laga badi 48 gool dhalisay 20 gool laga dhali 28 gool oo soo hartay 54 dhibcoodna waa ay leedahay. kaaga labaad Juventus ayaa soo dhaadhacday 23 kulan ciyaartay 17 ayay badisay 3 barbadhac gashay 3na waa laga adkaaday 44 gool dhalisay 23 gool laga dhali 22 goolna waa ay leedahay. kaalinka labaadna ayay ku jirtaa 54 dhibcood ayay leedahay. marka Inter Milan farqi goolal ah ayay ku haysaa oo 7 gool maadaama Lazio gool ee Juventus soo hartay aygan Lazio gool oo soo hartay. marka Lazio saddexda ku jirta 53 leedahay, afaraad Atalanta 42, shanaadna Roma ku jirto 39 ayay leedahay, lixaad Hellas Verona iyadana waxay leedahay 34 dhibcood. kaalma ugu hooseeya aynu eegno 18aad waxa ku jirta Genoa 19 dhibcood ayay leedahay, 19aad Brescia ku jirto 16 dhibcood ayay leedahay, 20aad Spal ku jirto 15 dhibcood ayay leedahay. halkaas aynu kaga talaabno kala sareynta horyaalka dalka Talyaaniga. daawada markaan waxaynu eegaynaa natiijooyinkii ka soo baxay kulamada 24aad ee horyaalka dalka Faransiiska ee Ligue 1ka Faransa. Angers 2 gool waxba Lille ayaa kaga adkaatay, Olympique 1-0 Toulouse kaga adkaatay, Amiens 2 gool Monaco ayaa kaga badisay, Dijon iyo Nantes 3 gool ayay galeen, Metz 2 gool waxa kaga adkaatay Girondins, Rennes iyo waliba Stade Brastillos 1-1 ayay galeen,
Nice 3 gool iyo gool Naimis kaga adkaatay. Multiplayer 1 gool iyo waxba waxay kaga adkaateen Santa Atain. Starsburg 3 gool iyo waxba waxay kaga adkaadeen Stade Reims. PSG-na 4 gool iyo 2 gool Olympic Lyon ayay kaga adkaatay. Kulamadiisii la tafaraad ay kuwaas ahayeen natiijooyin ka soo baxay. kulamada 25aad ayaynu eegi doonaa todobaad su'aad laga ciyaari doono iyo sida ay naadiyaasha isku wajihi doonaan. Monaco waxay soo dhabeey doontaa Montpellier, Amiens waxay soo dhabeey doontaa PSG, Girondins waxay soo dhabeey doontaa Dijon, Nantes waxay soo dhabeey doontaa Metz, Nimes waxay soo dhabeey doontaa Angers, Toulouse waxay soo dhabeey doontaa Nice, Olympique Lyon waxay martiqaadi doontaa Strasbourg, Stade Brest waxay soo dhabeey doontaa Santa Atain, Stade Reims waxay soo dhabeey doontaa Rennes, Lille iyo waliba Olympique Lyonnais waa ay iswajihi doonaan. kulamadaasina waa kulamada 25aad ee horyaalka dalka Faransiiska todobaad su'aadan laga ciyaari doono daawadayaal. waa tahay daawadayaal markaana waxaynu eegaynaa ka sheekeynta horyaalka dalka Germany. kulamadiisii 21aad ayaa todobaadkan laga ciyaaray. kulamada 21aad ee horyaalka Germany hadii aynu eegno natiijooyin ka soo baxay. Frankfurt 5 gool waxba waxay kaga adkaatay FC Augsburg. Freiburg waxay gool waxba kaga adkaatay Hoffenheim. Hertha BSC waxaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay Mainz eber 5. Schalke eber 4 gool iyo gool ay Werder Bremen la gashay. Werder Bremen 2 gool waxba waxaa kaga adkaatay Union Berlin. Wolfsburg gool iyo gool Fortuna ay la gashay. Bayer Leverkusen waxay ka adkaatay Borussia Dortmund 4 gool iyo 3 gool ay kaga adkaatay. Borussia Mönchengladbach iyo kulankaasi waa uu baaqday lama ciyaarin todobaadkan. kulankii wada sugayeen wuxuu ahaa Bayern Munich iyo waliba RB Leipzig eber ayayna ku heshiin. horyaalkana wili wax isbedel oo soo kordha ma jiraan. kulamada 22aad laga ciyaari doono horyaalka Germany hadii aynu eegno Bundesliga. Borussia Dortmund waxay soo dhabeey doontaa Frankfurt. FC Augsburg waxay soo dhabeey doontaa Freiburg. Hoffenheim waxay soo dhabeey doontaa Wolfsburg. Paderborn waxay soo dhabeey doontaa Hertha BSC. RB Leipzig waxay soo dhabeey doontaa Werder Bremen. Union Berlin waxay soo dhabeey doontaa Bayer Leverkusen. Fortuna waxay soo dhabeey doontaa Borussia Mönchengladbach. Köln waxay soo dhabeey doontaa Bayern Munich. Mainz eber 5 waxay soo dhabeey doontaa Schalke eber 4 ayay soo dhabeey doontaa. kulamadaas waxay ahaayeen kuwa 22aad horyaalka Germany laga ciyaari doono todobaadka soo aadan. waa tahay daawadayaal guntii gabagabadii barnaamijka ciyaaraha channelka Xariir Media ayay la soo gaar. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen Xariir Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. حب الرياضة والملعبة ومهما لعبت فلن أتعبا. مهما ربحت فشيء جميل إذا ما خسرت فلن أغضبا. ريرا 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 رام. ريرا 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 رام.